Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Soo dhawaada asxaabteeda quruxda badan meel walba adduunka dacladiisa aad ka joogtaan. Please haddaan nagu cusubtaa subscribe noo saar, like iyo commentigana nala wadaag. Insha Allah haddaa janaalka cusubtaa hoos u gal waxyaabo badan oo ka faa'iido ka heli doontaa. Maanta waxaan idin wadaa lasagna, pasta al fornati, ayi magaca aad markaas u kasii sida idin wadaa. Soo dhawaada mar kale iyo janaalkeena Maria Cooking Channel. وكنا maanta maasha Allah qurux macaankeedana maasha Allah ku dhahay zaaid oo ahay waa ku qadeynay qad qurux badan ee family dhan waqti isla qaadanay maasha Allah soo dhawaada maasha Allah aad iyo aad inuu fududahay wixii guriga ku yaala waaye aan wax gooni ah u soo gaday malahan xitaa matsare lama iyo olin barmijana rajana ma iyo olin laakiin wixii markaas iyaaliya ka sameeyay alxamdulillah sas quruxda badan ee igu soo baxday maasha Allah marka waxa jeclaysan adinkana idin wadaago gurigeena wixii markaas idin yaala ka samaysan kartiin wax aad iyo aad u fudud waaye wax saas u sii weyn ma ahan akada ka dhigtid laakiin aad wax weyn kula noqonaysa insha Allah waxa rajeenayna ka faa'iideen soo dhawaada asxaabteeda mar kale toodaan ugu cusubtaa subscribe nala wadaag akana waxaan ka sameeyay hilib shiidan talaajada hadda ka soo bixi baastada madow horaan ugu sheegay dieta wada aan iscaateen marka baasta madowda la isticmaalay waxa meeshan ku haysta kabsar caleen xabad toon xabad basal iyo waxa ku haysta yaanyo shishiidka oo bibiya iyo mid oo yaanyo taagan oo macnaa yaanyo nool camal laakiin gasac ku jirto yaanyo caadi oo fiiqa iyo waxa ismu daray yaanyadan la ku daraya hilibka mikroonka soo gelinaya waxa ka soo ridaya barafka insha Allah kadibna وكنا برتاودا دبك soo saartay suugada raba inaan sameeyo basasheedu waa soo jarjartay maasha Allah waxa ku aad iyo aad u fududahay baasta ciyaalkan zaaid u jecel yihiin maasha Allah aan ciyaalkeyga waliba adankan waxa rajeynaa inaad ka faa'iideysatiin wixii markaas guriga idin yaala ka samaysatiin yaanyada gasaca ku shubaya marka hore basasha marka ku shubay kabacdi yaanyada shishiidka ku shubaya shishidka waxa bibiyo tan waa ujeedin weeno nooshahay marka nololkeeda xitaa muhiim ma ahan in qaandada iyo wax isku bajisid iyada boqoqaysa dabka iskaga dhaafaysa inta biir ku dartid iyada soo hadartaan tan ma ku wada shubay half la ku shubaya laakiin tan gasaca waa ku wada shubay aad qiyaasta family-gaaga waxa laga yaabaa in wax yar xitaa ratid inaad samaysatid muhiim ma aha marka labada yaay markaas ma u baahnid waxa ku darsanaya xabad maraq digaag kale waa aragteen oo malena ka saa maraq digaag ku darsanaya wax cusub dhan ma ku daray iyo filfil insha Allah marka kaasa suugada aad iyo aad u fududahay wax weyn ana ku darsaday hilibka kaasa suugadina way si bislaan oo saa maasha Allah yaayada jawi isbedeloosa marka hilibka hadii aad inta kurida kaga tago sidii uu ku kuusnaanaya laakiin waxa rabaa in qaandada marka hore ku baabiyo hilibka iyo suugada isdhexgeliyo marka xitaa isbedelaya marka hore waxay ahayd yaayada kaligeed gaduud saaid marka hilibka lagu daro maasha Allah kaasoo isbedelaya marka kale samarkan inta oo la aadayo ma jirto tunta ujeedin anta waxa jeclaa ma jecli iyada nool ina ku dhaxrido ka bacdina hadhoota ka bixiyo marka dada waxay dhaayaan way ku dhaxdhumayso dusha koreyso soo koreysa toonta mar walba hadda waxa ku darsanaa filfishani marka kooma ku darin waa ujeedin waa ka hilmaamay oo kidba gadaal uga dari laakiin waa niitusay marka dartan suugada dabka muddo ku dhaafa 40 daqiiqo camal hadana creamka samaysanaya creamka meesha waxa ku soo shubay jab subag buure ama ay subag markaas haysatid muhiim ma ahan in subag buur bis haystid laakiin aan markaas subag buur haystay jab subag laba qaando oo qaandada cuntada lagu cuno oo buur wax weyn ma ahan marka waxa markaas haystaa ka samaysanaysa creamka xitaa aad iyo aad u fudud yahay marka insha Allah ninkan waxa rajeenaya in family-geena iyo ciyaalkiina bariis iyo pasta caadi ka dhaafteen oo marmar ugu galisin waxa ku shubana meesha caano ama waxa ku darsadaa caano caadi ay caano markaas haystida ku darsan kartaa hadana waxa ku darsanaa juice ama nojo muscat soo ka siisid
jooska wuu carfinayaa kuley joos qof kasta way kasaysaa xalwada lagu carfistaa caraf ka helaysaa marka maasha allah. waxaa ku dhahay burkii dhan waa ku baabiiyey caanaha waxaa sugaya waxyar intay ka adkaanayso markay adkaatana waa ka dejinayaabo maasha allah. waa kana waa kasoo dejiyaa dartan sano noogu soo baxay creamkeeni suugadeena diyaar waaye waatana sasa noogu soo baxday quruxda badan maasha allah. intan waxaa noo taasho baastadeeni intan waxaa noo yaalo uusti farmaajo waxaa u kasaysid markaaseeti ama jiis anoo yaalo. ani waxaa jeclahay weelka intaan baastada saarin ka hor inaan suugo mariyo mid kale tad ma jecli baastada geeska oo saxanka ama weelka markaas aan baastada saarana inaan geeska uga xageegeeyo. baastada dadka laba nooc ay u samaystaan nooc waxa waaye biyo kuleel soo qaadanaysaa waa dhex gelinaysaa kabacdi waxaa saaranaysaa saxanka foornada la gelin lahayd ama kaleeto iyadoo qaleel oo foornada maxaa dhahay oo waxba biyo kuleel ku saaraysaa hadda aan sameeynayo aa sameyn kartaa. ani markaa dartaan labada dhinac buu u isticmaalaa ani labada dhinac buu u sameystaa laakiin maanta waxaan rabaa inaan idin wadaago tan biyaha kuleelka aan soo dhex gelinaynin insha Allah tan kalena waa idin wadaagi doonaa haddii Ilaahay ka raali noqdo. marka tan haddii geesmanka aan saxanka uga dhaweeyay baastada waxay ka noqonaysaa geesmanka qaleel maraba marka inay qaleel noqoto waxaa rabaa inay suugada dhan ay dhex gasho marka baastada dhexda dhigaya geesmankana suugada u badinaya musa dhexdaba ugu badinaya aan geesmankana ugu sii laakiin geesmanka taxadiraan sameynaya si ay hadhowda geesmanka qaleel iiga noqonin mana jecli baasta geesmanka qaleelka yani gees walaa dhex inay isku mid ahaato markii la cunayo aan jeclahay. marka qof walba dooqay leedahay qof walba si uu uga helaa marka dartaan u jeedin baastadii koowaad waa soo saaray baastadii suugadii saaray hadda creamkii saaray ku shubooya kabacdi waxay jiisa ku daraya ama farmaajo ama uusisa u kasaysid markaaseeti kabacdina insha Allah sasa ku wadaya aad u fududahay. saxankan waa markii ugu horeysa ku sameeyo wuu weyn yahay oo family dhan aan nahnay alxamdulillah oo waqti isla qaadanayo marka hore dad saxan yar leh ku sameysay jirnay markii waa ka saadana u saaraa mar kale geesmanka marka hadana gees weyn ay banaan soo jajabinaya aad kale qof walba isku basriso way ka siisaa markii aad family-gaaga qiyaastooda aad markaas ka siisid isa markaas wax u sameysnaysid laakiin ani qiyaasteeda waa qiyaaska normal intaan ahnayaan ku qiyaastay family-geena sidoo yahay aad waa ka suugad waa ku soo simay waa u jeedin geesmanka maasha Allah way banaan tahay oo saxanka hada saxan ku dhijiyo waa ku dhiji karaa baastada waliba waxaa helayaa boos weyn helayaa laakiin marabo baasta qaleel ma la cuni karo meel ka tuur meel ka cun ma fiicno waxa fiican qofka marka uu keentid saxankiisa inuu kulli dhameysan karo sababta tahay oo meel qaleel meel biseel meel ceyrin oo san lahayn. markii aan biyaha insha Allah aan ku soo suubinayno idin la wadaagi doonaa haddana insha Allah nala socda sasa ku wadaya insha Allah. aad u fududahay alaabtaan maasha Allah wax weyn ma ahan kale waa ujeedin wixii guriga iyo albis la ka sameystay waxa aad u badan ma ahan tan kale dad baastada waa celinaya waayo maadaama saxanka oo dhexda aan ka saarooy oo geesmanka ka saaroonin way kala fakanaysaa marka waa inaa ilaalisaa hadda waa kana ku soo dhameeyay maasha Allah waxyaro waxaan dusha ka saaraya jiis ama uusti ama farmaajo oo ka siisid maasha Allah kabacdina foornada gelinaya aadi 25 daqiiqo 30 daqiiqo oo waxa 170 165 aadi meelaas digriga kuleelka marka waa ka saasay noogu soo baxday quruxda badan maasha Allah. waa kana saxankeena soo saaranay maadaama diyada ku jiro ani waxa soo saartay insalaato saqo cunaya maasha Allah idinku soo dhawaada asxaabta ismartiyeenina channelkiini waa subscribe ka dhac ku siiya hadda ka faa'iiday ama ka heshay baastada
like saar sas quruxda badan ee noogu soo baxda inta videogan video lamid dib uga kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullahi